wacan daawade halkan waa channelka Halgan Media kusoo dhawaada daawadayaal warka subax qodobada ugu waaweyn ee ku daawan doontaan waxa kamid ah qarax khasaare geysay oo xalay ka dhacay degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho taliska qaybta ku ilaatanaad oo ciidamo diray deegaanka Bacadweyn ee gobolka Mudug dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo heshiis ka gaaray qodob ay aad isugu hayeen dowladda Soomaaliya oo xil cusub magacaawaysa xiralii hore qaranka Axmed Cali Daahir iyo buuq ka taagan mas'uuliyiin xilka qaadis ku wajahaya magaalada Muqdisho daawadayaal qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka subax ee Halgan Media fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay subscribe leh riix gambalaalka saado ee wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka markana u diyaar garooba qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran qarax khasaare geysay ayaa xalay ka dhacay degmada Waaberi ee gobolka Banaadir qarax nooca minada dhulka la geliyaa ayaa xalay ka dhacay degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho gaar ahaan wadada 11 Oktoobar sida Halgan Media ay u xaqiijiyeen goobjoogayaal xilliga qaraxa uu dhacay waxa wadada marayay gaari nooca raaxada ah gaar ahaan Toyota Sayro Furnet waxaana ku dhaawacmay qof loo qaaday goobaha caafimaadka si loo daweeyo ciidamada dawladda oo saldhig iyo bar controlba ku leh meel aan sidaas uga fogeyn halka uu qaraxa ka dhacay ayaa goobta tagay waxa ay xireen socodka dadka iyo gaadiidka ilaa ay ka soo gabagabeeyeen baaristooda halka qaraxa miinadu ka dhacay meel aan sidaas uga fogeyn waxa dhawaan ka dhacay qarax kale oo ahaa miino nooca dhulka lagu aasaa inkastoo aysan waxyeello gaarsiin xilliga ay qarxisay dadka shacabka ay halkaasi ka agdhowaa taliska qaybta ku ilaatanaad ayaa ciidamo u diray deegaanka Bacadweyn ee gobolka Mudug ciidamo ka tirsan xoogga dalka gaar ahaan qaybta ku ilaatanaad ayaa u ruqaansaday deegaanka Shabeelow oo 20 kiiloomitir u jira magaalada Bacadweyn ee gobolka Mudug kadib markii dagaal uu halkaasi ka dhacay askartan gurmadka ah ayaa wata gaadiidka dagaalka hubka noocyadiisa kala duwan waxaana hawada laga saaray isgaarsiin deegaanka dagaalka ka socda iyo meelaha kale ee u dhow saraakiil ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya ayaa Halgan Media u sheegay in askartan ay gacan siinayaan dad deegaanka ah oo la dagaalamaya al-shabaab kadib markii laga afduubtay shakhsiyaad caan ah deegaanada bariga gobolka Mudug waxaa ku sugan al-shabaab taliska qaybta ku ilaatanaad gaar ahaan guutada 17 saraakiil ka tirsan waxa ay tageen qaar ka mid ah deegaanadaasi inkastoo markii dambe dib ay uga baxeen al-shabaab ayaa sheegatay inay gacanta ku dhigeen deegaankaasi isla markaana ay saldhigyo ka qabsadeen ciidamo ka amar qaata Galmudug kuna gaarsiiyeen khasaare dhimasho gaari laga gubay ciidanka sida al-shabaab ay shaaciyeen xiisad dagaal ayaa ka taagan gobolka Mudug gaar ahaan Bacadweyn iyo deegaano kale oo u dhow bilowga isku dhaca ayaa soo bilowday gilninkii dambe ee shalay waxaana hawada laga saaray isgaarsiin deegaankaasi waxaana halkaasi ku dagaalamaya dadka deegaanka oo is-aabulay al-shabaab kuwaas oo ka carooday xoolo iyo sidoo kale dad laga afduubtay dadka deegaanka oo al-shabaab ay ka wateen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa heshiis ka gaaray qodob ay aad isugu hayeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulada dalka ayaa mar kale gaaray heshiis cusub kaas oo ku saleysan qaabkii ay u kala qaybsan lahaayeen dakhliga dalka oo ah mid kamid ah qodobadii ay aadka isugu hayeen warmurtiyeed ka soo baxay shirbilaadkii wasiirada maaliyadda dowladda iyo dowlad goboleedyada dalka ayaa isafgarad looga gaaray qaab cusub oo ka duwan midkii hore ee lagu qaybsan jiray dakhliga gudaha shirkaasi u dhaxeeyay wasiirada maaliyadda dalka ayaa sidoo kale waxa isafgarad looga gaaray in si wanaagsan oo lagu wada qanacsan yahay loo qaybsado dakhliga wadanka dowladda iyo maamulada oo uu qayb ka yahay gobolka Banaadir ayaa gudi farsamo u soo saaray sidii looga xaqiijin lahaa heshiiskaasi cusub oo dhigaya in qaab ka duwan kii hore lagu qaybsado dakhliga midaasi oo meesha ka saaraysa guux ka dhashay arintaasi shirkaasi bilaha ah ayaa waxa kale oo diradda lagu saaray qaabka loo wadaagi lahaa dakhliga kabka miisaaniyadda ee bangiga adduunka kaas oo ku aadanaa hoos u dhici maaliyadeed ee uu sababay coronavirus waxaana si weyn la iskula lafaguray intii uu socday shirkaasi qodobo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen hanaanka maaliyadda dalka iyo canshuuraha mideynta dalkeena Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa xil cusub magacaabaysa xiralii hore ee qaranka Axmed Cali Daahir
dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in xil cusub magacaabayso xiraalihii hore ee qaranka Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo hore xilkaas looga qaaday ila wareedkan aan helnay ayaa sidoo kale inoo sheegaya in maalmihii dambe Daahir ku sugnaa Muqdisho si dhowna madaxweynaha arrimo badan ka caawinayay kadib magacaabida ra'iisul wasaaraha dalka oo loo dhaga taagayo ayaa isna xil loo magacaabi doonaa ex xiraalihii hore ee dalkan Axmed Cali Daahir isbuucii hore Dr. Daahir waxa uu la kulmay siyahayaha xilka ra'iisul wasaaraha Abukaate Mahdi Guuleed Qadar Mahdi Guuleed ayaa warar aan ogaanay waxa uu ka shaqeynayaa in gudoomiyaha qaranada difaacaya badda kiiska dacwadda Kenya iyo Soomaaliya laga dhigo Axmed Cali Daahir akhbaaraad kale ayaa sheegaya inay suuragal tahay in safiir loo magacaabo Axmed Cali Daahir oo ah aqoonyahan dhinaca sharciga bartay diblomaasiyadana ka fahamsan wax badan kulankii Mahdi Guuleed la yeeshay xubnaha maamulka Gedo ee xafiiska ku qaabilay laguna arkay Axmed Cali Daahir kulankaas ay dadka qaarkood u fasirteen in dib ugu soo laabanayo jagooyinka sare ee siyaasadda tan iyo markii xilka laga qaaday 25 November 2019 markaas oo ahaa xiraalihii guud ee qaranka Soomaaliya xog aadan buuq ka taagan mas'uuliyiin xilka qaadis wajahaya gudaha magaalada Muqdisho gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa dib u dhigay xilka qaadis uu doonayay in gudoomiyaal degmo lagu sameeyo aqalka dawladda hoose ee Xamar ayaa waxa hoggaankeeda ay sheegeen in gudoomiyaasha lagu soo eedeeyay wax qabad la'aan dhinaca maamulkooda ah Cumar Finish ayaa tagay maalmo ka hor degmada Karaan lana kulmay gudoomiyaha degmadaasi Abshir Maxamed Maxamuud Abshir Karaan isagoo ka xog wareysay xaaladda degmada Karaan warar ayaa sheegay in cabasho badan oo ka timid gudoomiye Abshir ay madaxda gobolka Banaadir isku xil saareen oo koorgelida ashtakada la soo gudbiyay sidoo kale waxaa la sheegay in gudoomiyaha degmada Hilwa Cabdixakiin Cumar Cabdulle isna isha lagu hayo kadib dhowr arin oo sabab ka dhigi karta in xilkan uu ku waayo Cabdixakiin oo hore uga shaqeynayay wasaaradda warfaafinta ayaa xilkaasi waxa geesay aabihiis gudoomiyihii hore ee degmadaasi Cumar Cabdulle Jacfaan gudoomiye Cumar Finish ayaa sheegay maalmaha soo aadan isbedel uu ku iman doono hoggaanka degmooyinka gobolka Banaadir ayna xilka qaadis jiri doonto degmooyinka xilka qaadista gudoomiyaasha la kulmi doona ayaa waxa kamid ah Yaaqshid oo Muuse Macalin Jimcaale hogaamiyo degmooyinka Hilwa Karaan iyo Boondere ugu dambeyntiina dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay guusha ay gartay Ilhaan Cumar siyahayaha ra'iisul wasaaraha dalkan Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa hambali u diray Ilhaan Cumar Faatax iyo Jamaal Cismaan oo guulo ka gaaray doorashooyinkii heer federaal gobol iyo degmo ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka siyahayaha ra'iisul wasaaraha ayaa muujiyay sida dadka Soomaaliyeed ugu faanayaan guusha ay gaareen dhalinyarada Soomaaliyeed isagoo rajeynayay in ay ka wada shaqeeyaan xoojinta xiriirka dadka Soomaaliyeed ee dalka jooga iyo Soomaalida ku dhaqan dalka Mareykanka Ilhaan Cumar ayaa ku guuleystay xilka ama kursiga ay ku fadhiso ee xisbiga dimuqraadiga kadib tan adag ee la gashay musharax kale oo isna ka socday isla xisbigaas dimuqraadiga guud ahaan daawade wanaagaynta warka subax ee halgan media tan iyo kulan dambe nabadgelyo